waa tahay saaxiibayaal dad fara badan oo kala duwan ayaa soo socda musharaxiintii xildhibaanadii dadkaas safka ku jira oo dhan waxa ay ka mid yihiin dadkii iyagu markaasi ama aqoonsiyada haystay ama xildhibaanada ahaa ama sidoo kale musharaxiinta ahaa saraakiisha ciidanka ayaa soo socota halkaa hortayda waxaa soo maraya jenaraal siciid deere oo aad u labisan janarnimadii sidista asalaamu calaykum jenaraal siciid jenaraal siciid bal intaanad howlka gelin dareenkaaga dareenkaygu boqolkiiba boqol wey alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxay risaltina waa la sugaya ninkii ilaahay u gartaana qaadanaya xalay musharaxiinta xildhibaano badan baa u tegtegayey oo dhaqdhaqaaq badan baa jiray arrintaas maxaa ka ogtahay suuqa aqoonda loo tegay weydii adiga xildhibaan ma ku yimaadeen xalay maya shaanada maxay ka soo doonayaan xildhibaanku goobta doorashada iyo way soo salaami karaa dadku ma ogtahay dadku ma kala xirnaa laakiin xildhibaan aniga dangaara iigu yimi ma jiro beeshaa raadinaysay cidi iguma iman waa sida dadkuse way iman karaa oday baan u ahay dee dadka o dhan maxaad rajaynaysaa gol wax lacaga ma bixisa xalay maxaan bixinayaa sababtee u bixinaya lacag muwaadin baan ahay dhiiggayga waa ku daatay da'daasaan ku soo gaaray difaaca dalka waa saas wey guul baan kuu rajaynaynaa jenaraal saciid waa tahay kaas wuxuu ahaa jenaraal siciid deere oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada puntland waxaanuu ka mid yahay 21ka musharax ee u taagan xilka madaxtinimada puntland hadda waxaa muuqda salwe wuxuu ka mid yahay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka u sharaxan dareenkaaga faysal subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullah dareenkayga aad buu sarreeyaa sababto ah waxaa noo dhacaysa doorasho alxamdulilah rabbilcaalamiin aakhirkii nabad ah insha allah dee mar haddii howlka la yimidna dhan walba u dhici kartaa waxaa ugu muhiimsan in transition fiican isbeddel fiican inuu dalka ka dhaco rajadaadu aad bay u kooban tahay waa inuu soo baxaa musharax aan inta badan musharaxiintii deegaamada laga dooran jiray aan laga dooran waa gartay ugu yaraan xataa yani in la isku dayo oo talabadaas la qaado oo la muujiyo dalkan inuusan kala qoqobnayn oo la wada leeyahay waa guul dadku wax badan bay ka aaminsan yihiin musharaxiinta dhaqdhaqaaqyo badanna way jireen ilaa xalay xalay cid mad la kulantay oo dadka iyo siyaasiyiinta iyo mataqaanaa dhalinyarada xildhibaanada maya xildhibaanada waxaan telefoon ku wada hadalnay iyo intii aan shalay wada ballanay ma wax kale oo aan la ballanay waxaan aragnay ma jiraan dad badan baa ku daawanaya tuhun badanna waa laga qabaa musharaxiintu inay lacaga bixinayaan meesha u socotid aniga waxaan daadihinayay barnaamij 100 maalmood socday oo la yiraahdo kala bayr oo dadku ugu yeerayay in aanan xildhibaanada haba yaraatee aanan lacag lagu soo saarin si aysan u soo saarin madaxweyne lacag ay ka qaataan sidaas darteed waxaan 100 maalmood soo waday oo la igu yaqaanay oo aan u mataqaanay u ololeynayay kuma celin karo isla habeenkii ay doorashada madaxweynaha dhacaysay marka taas bataatanba aniga iyo intii ila jaal ah iyo intaan isku qorshanahay waxaa naga go'annaa inaan bilowno dhaqan cusub oo ah in aanan haba yaraatee la bixin wax laaluush ah oo aanan codka dadweynaha iyo masiirka ummadda aanan lagu gadan lacag xildhibaanadu iyagaa haysta khiyaar ay ku kala doortaan in ay ku celiyaan wixii ay weligood wadi jireen 20 sano la soo dhaafay oo macnaheedu uu yahay inay rabaan inay ku sii socdaan waddada ay ku socdaan ama in ay ka leexdaan oo ay doortaan dad masiirkooda iyo mustaqbalkooda ku haga waddada saxda ah balse ayaan ka gadan oo yacni ilaahay hortii ay codkooda ku bixiyaan iyo iyagoo ilaalinaya qadiyadda waa tahay daawadayaal weli waxaan ku sugannahay baarlamaanka hortiisa jawigani waa jawiga ay doorashadu u dhacayso dadkani waxay ka mid yihiin dadka martisharafka ah iyo weliba musharaxiinta oo macnihii laynkan gelaya waa tahay haatanna waxaa hoolka soo gaadhay ama gaadhigan gadaasheeda socda uu yahay gaadhiga musharax maxamuud khaliif jabiye oo ka mid ah musharaxiinta puntland haddii ay noo suuro gashana waxa aanu fursad la gaadhi doonnaa ama ka eegi doonnaa in musharaxu uu noo helayo daqiiqadii laba uu asalaamu calaykum
محمود خليف والله لسيتاي الحمد لله درين كاغا ما شاء الله very excited ما حد فلسه قول واقرتي قول يا قعبه وي السلام عليكم مدن المشرح درين كاغا مشرح ساكت درين كاغا سيئه وفي عيه مشرح السلام عليكم بلدرين كاغا ساكا رالي سيتاي درين كاغا سيئه ساكا هدي هولكي دورشده جلس dareen maxaa ka wadaa maxaad filaysaa saaka xataa meesha waqtigii doorashada la gaaray saaka waxaa la yidhaha su-aasha khaldan jawaab khaldan bay dhashaa marka dareen ma jira dareenka waa fiican yahay dareenka waxaa la yidhahdaa qofku wuxuu filgaranaya wuxuu macnaha dareemayo laakiin saa waxaan dareemaya inay guul ku dhammaato qofkii ku habboonna ilaahay xukunkiisa xaggiisa ka soo baxana inuu ku soo baxo madaxweynaha puntland rajadaada adigu in lagu doorto taasta rabbi wey xagga rabbi rajada qofka marka la weydiinayo qof jeebka wax ugu jiraan ma jiro waxaa weye doorashada waa xildhibaan wax dooranaya dee xildhibaanada iyo ciddii ku habboon oo ilaahay xukumo ay doortaan bay ku xidhanta aad baad umadsantay guul baan ku rajaynaa janaal السلام عليكم مرشح داهر بل انت انا هولك قلين ما حد دريميسا ساك السلام عليكم هذير انا waxaan dareenayaa shacabka reer Puntland waxay daafici doonaan sharafkooda iyo jiritaankooda iyo karaamadooda daafici doonaan maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa cid kastoo isku dayda inay gadato shacabka reer Puntland way ka qoomamayn doontaa ma bixisa adu waxba maya ma bixin meel lagu bixiyay moogtay maya mana tagin guriyihii lagu bixinayo mana ogin ya maasanta waa tahay daawadayaal hadda waxaa soo istaagay baabuurtii siday musharax cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynihii 5 sano ee la soo dhaafay ee Puntland hogaaminayay ilaa haatanna ah madaxweynaha haddii uu xilka ku guulaystana 5 sano ee soo socda noqon doona haddii laga guulaystana wuxuu noqon doonaa madaxweyne maamuuskiisa iska leh baabuurkiisii waa la fogeeyey madaxweynaha waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu toos aan filayaa inuu u geli doono xarunta baarlamaanka oo isaga baabuurtiisa loo ogolaanayo in uu galo way adag tahay inaanu madaxweynaha helno laakiin jawiga markii uu gelayay hoolka sidan ayuu ahaa musharaxiin badan baa laga yaabaa inaysan dareenkan ku farxayn oo ay u arkayaan in iyaga iyo madaxweynaha aan loo cadaalad falin